Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aad baan idin salaamayaa asxaabteeda meel kastoo dunida guudkeeda ka joogtaan. Maanta waxaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo qaabka haddii lacagta lagaa diido ama haddii Facebook page-kaaga loo diido inaad lacag ka samayso dabeeta aad u samayn lahayd mar labaad codsi. Haddaba codsigan ama abil aad uga qaadan lahayd tusaalehaan haddii la diido waddankaad joogto, haddii copyright lagugu qabto, fursad ayuu ku siinayaa Facebook page-ku si aad mar labaad u saxdo qaladkaaga. Haddaba insha allahu tacaala hadda ayaynu gudageli doonaa qaabka abilka aad uga qaadan lahayd. Kusoo dhawow haddii aad channelka cusub tahay fadlan subscribe saar, waad mahadsan tahay. Marka koowaad waxaad soo kicinaysaa Chrome-ka, waxaana tegi doontaa insha allahu tacaala goobta Google-ka loo yaqaano si aynu uga raadino macluumaadka aynu u baahannahay. waxaan ku qori doonaa Facebook monetization appeal. intaas ayaad insha allahu tacaala ku qori doontaa. kolley wax kastood ugu baahan tahay oo marka adiga dhibaatada ku haysata waad xalin doontaa insha allah. ha isdhibin marnaba, way Facebook page-ku hal chance buu siinayaa, laba ayaa laga yaabaa in nasiibkaa ku siiyo. marka insha allah losgate waan hore u soconnaa insha allah si aynu barnaamijkeenan usii gudagalno. Facebook monetization appeal markaad ku qorto dabeeta qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa. qaabkan markuu kugu soo baxo kor ayaad wara bixi doontaa. dabeeta waxaad arki doontaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo sida tan. waxaad taaban doontaa partner monetization policy ayaad riixi doontaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. dabeeta halkan markay kuu soo baxdo kolley halkan ruleska iyo sharciyada Facebook page-ka u yaala ayaad ku arki doontaa. haddaad ingiriisiga si fiican u taqaano kolley waad akhrisan doontaa, laakiin muhiimadda aan u soconaa waa inaanu helno goobta abiilka laga qaato haddii Facebook page-kaaga lagaa xidho. marka hadda ayaynu taaganahay goobtii. saad wada arkaysaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo Facebook halkan ayaa qof kasta oo Facebook page ama Facebook leh markuu dhibaato la kulmo oo abiil ka qaata. haddaba abiilkan muxuu micno weyn noo sameynayaa? wuxuu micno weyn u sameynayaa qofka Facebook page-kiisa raba inuu lacag ka sameeyo ayuu ka saacidayaa inuu mar labaad codsado haddii qalad Facebook-ga dhankiisa uu jiro ama xaggan uu jiro. haddaba insha allahu tacaala qaabkan markaad abiilka ka garayso waxaa kuu soo baxaya page-kan partner monetization policies appeal. partner iyo contact waa labada qodob aynu soconno. dabeeta partner ayaan waqti xaadirkan u soconnaa maadaama asxaabteeda qaaliga ee su-aasha ay soo weydiin tahay. Facebook page-ka waanu samaysanay, lacagti waanu dalbanay, laakiin copyright baan lagu qabtay. haddaba copyright-ki maadaama aad rabto inaad ka saxdo halkan aad imanaysaa insha allah partner ayaad ku dhufanaysaa. qodobka labaad oral ay ka qorantay URL waxaad ku samaynaysaa Facebook page-kaaga tagaysaa. dabeeta waxaad soo kala garaynaysaa Facebook page-kaaga. dabeeta halkan ayaad kusoo baasto korinaysaa ama aad keenaysaa. sidoo darkaasna hadda Facebook page-kaaga baan halkan kusoo kobiyeenaya hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. sabarka hala badiya asxaabteeda qaaliga. kulli waxaan jecelahay inaan barnaamijka idin faahfaahiyo badanaa barnaamijyada kale waan dul maraa, laakiin caawa waxaan rabaa inaan ku yaranasto barnaamijkan si asxaabtu ay uga faa'iidaystaan wixii ay dan u arkaan. sababtaa waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo Facebook-ka dhex fadhiya waqtigooda ku lumiya. marka intii waqtigooda ku lumin lahaa waxaa qurux badan in ay lacag ka sameeyaan si waqtigoogana u saaf noqdo insha allah. okay partner qodobka koowaad markaad ka doorato Facebook page-kaaga ayaad soo copy garaynaysaa. waxaad insha allahu tacaala screenshot kasoo qaadi doontaa sidoo kale Facebook page-kaaga qaybta lacag sameynta oo idana gadaal kaa tusi doono hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. caawa Facebook page-kan ayaynu ka sameyn doonaa tusaalaha insha allah. okay waxaanu ka qaadan doonaa Facebook sababta aynu usoo galnay page-kan waxay tahay inaanu qaadino copy-ga page-kan maadaama yahay page-kan u doodano xuquuqdiisa luntay ama copyright-ka lagu qabtay. okay hadda ayaan tusi doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo halkaad ka qaadanayso copy-ga linkiga Facebook page-kaaga. okay more halkay ku qoran tahay ayaad kala garan doontaa. more halkay ku qoran tahay insha allah kala garan doontaa. la socda asxaabteeda qaaliga hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. hadda Facebook page-kan waxaa ku xidhan 11,000 oo qof.
okay kor baad soconaysaa halka ugu hooseysa share page ay ku qoran tahay copy page link baa ku qoran copyga linkigiisa aynu qaadanaa pageka linkigiisa aynu qaadananaa intaa markaanu qaadano insha allahu tacaala waxaanu ku noqon doonaa goobtii abiilka aynu ka qaadanayna dabeete markaanu kusoo noqono saad wada arkaysa asxaabtada qaaliga halkan markaad kusoo noqoto basta ayaad leedahay facebook pageka aad linkigiisa setay ayaad halkan bas ku leedahay dabeeto labadii qodob aynu dhamaystirnay qodobka koowaad oo partner aynu dooranay qodobka labaad oo facebook pageka inaynu copy linkigiisa halkan keeno qodobka saddexaad waxa weeye facebook pagekaaga qaybta Carrot Studio-ga ayaa waxaad kasoo qaadaysaa sawir macnaha sawir markaan ku leeyahay macnihiisu waxa weeye screenshot ayaad kasoo qaadan doontaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo dabeeto choose file ayaad kala garan doontaa isaga isla sawirka ayaanad soo qaadi doontaa send ayaanad oran doontaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo tusaale ahaan facebook pagekayga sawirkan aan kasoo qaaday bal ila fiirso facebook pagekayga waxaan kasoo qaaday sawirkan aad arkayso waxaana lagu haystaa intaasoo qodob dabeeto waxaan rabaa hadda inaan abil u qaado restriction monetization saad arkaysaa marka insha allah sawirkan markaad soo qaadataan send ayaad oran doontaan khayr baan idin rajaynaya asxaabtayda qaali